kulanti wacan oo wanaagsan dadkaana daawanaya meel kasta oo aad nagala socotaan xubintan ciyaaraha ayaan waxaan ku soo qaadaynaa gobolka Ohio ee dalka Mareykanka oo dhawaan lagu soo gabagabeeyay ama baan dhahday toddobaadkii hore lagu soo gabagabeeyay tartanka kubadda cagta ee guud kasta lagu qabto North America sanadkan oo Ohio nasiib u heshay in tartankaasi lagu qabto ayaa waxa ka soo qayb galay tartankaasi dhinaca kubadda cagta ilaa iyo 16 kooxood oo Soomaaliya haddaba hanaankii loo qabtay tartankaasi iyo cidii ku guuleysatay ayaa waxaan si toos ah idinku gudbin doonaa wariyaheenna dhinaca ciyaaraha inoo qaabilsan oo isagu goobtaasi lagu herdamayo jooga Cabdirasaaq Cali Boos ayaan idin gudbinayaa oo Ohio jooga iyo farsamo yaqaan Cabdiyare Gurxan aad iyo aad ayaad u mahadsantahay wariye Cali Xaraare waxaanu maanta ku soo qaadanaynaa barnaamijkeena isboortiga koobkii xilliga guga ama spring loo yaqaano ee ka dhaca gobolka Ohio ee Soomaalida ku nooshahay koobkaas ayaa la qabtay sanadkii 12aad koobkaas waxa isugu yimid 16 kooxood oo ka kala yimid dacalada North America oo dhan haday aan lahayd gobolada Mareykanka oo dhan iyo haday aan lahayd Canada koobkaas barnaamijkan oo diyaarinay oo faahfaahsan ayaanu idin soo gudbin doonaa ee ku soo dhawaada waxaa lagu soo bandhigay xaflad aad iyo aad u qurux badan xilligii la furayay ciyaarihii koobka lagu qabto Ohio sanad walba xilliga guga ee ay Soomaalidu isugu timaado ku nool dalalka Mareykanka guud ahaan iyo waliba Canada waxa kale oo xafladda ka soo qayb galay ra'iisul wasaarihii hore ee dawladda ku meel gaarka Mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo si rasmi ah halka uga qayb qaatay waxa lagu soo bandhigay waxyaabo fara badan oo aad iyo aad maanta waxaanu joognaa garoonka weyn ee loo yaqaano Sportsfield ee ku yaala Columbus Ohio waa garoon dedan oo lagu ciyaaro xilliga spring ama xilliga guga loo yaqaano oo sanad walba lagu qabto Soomaalida ku nool waqooyiga America oo dhan haday aan lahayd dalka Mareykanka isteediyadiisa kala duwan iyo haday ahaan lahayd Canada waxa halkan isugu yimid kooxo fara badan oo ka yimid gobolada Mareykanka oo dhan iyo Canada koobkina maanta ayuu si official u bilaaban doonaa wuxuuna ka dhacayaa garoonka dedan ee Sportsfield ee ku yaala Columbus Ohio koobkan oo la qabanayo sanadkii 12aad wuxuu bilowday koobkan markii taariikhdu ahayd 2000 sanadku markuu ahaa maantana waxa la qabanayaa markii 12aad waxaana koobkan ka soo qayb galay kooxo aad u fara badan hadda ciyaarta ugu horeysay maanta waxay dhexmari doontaa labada kooxood ee kala midnimo oo ah koox ka socota Minnesota iyo kooxda Eagles ee Ohio oo labaduba kala group B waxa kale iyaguna isla waqtiga ciyaari doonto qaybta kale ee garoonka kale ka ciyaari doonta kooxda Hillaac Ohio iyo Arizona All Stars oo iyaguna ka yimid gobolka Arizona Hillaac Ohio waxay ka timid magaalada Ohio labada kooxood waxaana sidaas macnaheedu tahay laba kooxood oo home ah oo wada Ohio ka socda oo kala ah Eagles Ohio iyo Hillaac Ohio ayaa waxay la ciyaari doonaan laba kooxood oo ka kala yimid laba gobol oo Mareykanka ah oo kala ah midnimo Minnesota iyo kooxda Hillaac oo la ciyaari doonta Arizona All Stars bilaabatay ciyaartii dhexmaraysa kooxda midnimo Minnesota waa kooxda ku ciyaaraysa funaanada cad iyo surweelka guduudan halka kooxda kale intana oo la ciyaaraysana ay yihiin Eagles Ohio waa wiilasha ku ciyaaraya funaanada buluuga iyo surweelka buluuga ciyaartuna waxay maraysaa eber waana qaybta koowaad ciyaarta wali waxaanu joognaa garoonkii Sportsfield ee ku yaala Columbus Ohio oo ciyaaraha si toos loogu qabtay sanadkan spring tournament oo sanad walba lagu qabto gobolka Ohio ee dalka Mareykanka khaasatan magaalada Columbus waxa ciyaarta ku xigta ay dhexmari doontaa labada kooxood ee kala ah Twin City Stars oo koox Minnesota ka timaada iyo Samba team oo from Ohio marka hadda halkan waxa la miteynaya oo jimicsanaya kooxda Twin City Stars marka kooxda ayaan ciyaartooyda coachkooda la kulmi doonaa haddan waxaan la kulmaynaa tababaraha aadka looga yaqaan North America iyo Soomaaliya oo dhan Maxamed Carab oo wiilka dhalinyarada dhinaciga midig taagan oo kooxda TC gacanta ku haya tababarkoodii marka maantana waxa ay kooxdu ka qayb galaysaa koobka ka dhacaya gobolkan Ohio spring tournament ku soo dhaw Maxamed Carab TV-ga Home Cable TV Albaas waa maasanta waxaan ku weydiiyay maanta waxaad la ciyaari doontaa koox gobolkan aad martida ku tihiin oo Ohio la yiraahdo Simba team marka maxaad filaysaa ciyaartaas la dhalinyarada aad u fiican weeyaan waxaana coach gareeyo ciyaartooy hore aan isku ciyaari jirnay Maxamed Faarax
ciyaartooy aad loogu shaqeeyo waa ciyaartooy age-kayga la eg waayaan oo maarata gruupkan anaada aan tababaro marka challenge oo aan ku arko shaqadan soo qabanaynay intay gaarsiisan tahay wayaan oo maarata imtixaan fiican aan mari doono wayaan insha Allah laakiin maadaama aad sheegtay coachka kooxda Simba inaad nin aad istaqaaneen uu yahay ciyaartooydu si fiican rajadiina maxay tahay ma 50-50 ba ma badinaysaan maxay rajadiina tahay tiimka awoodiisa aad qiyaastay taas maaragtay resultooda wax aan control karna ma ahan mid alla u taalo weeyaan laakiin afartiga maaragtay emotionkeena inaan controlna is objectivekeena ama goalkeena maantaas uu yahay waa mahadsantahay barnaamijku waa cad iyo madow sida uu inoo sheegay tababaruhu marka waa arki doonaa ciyaartaas waxay ku dhammaato waxaa kale oo dhinacan taagan goolhayaha kooxda TC ninka loo yaqaano cabdiqani kusoo dhow walaal aad iyo aad baad mahadsantahay ka waran maanta ciyaarta kooxda ka soo horjeeda horey ma la ciyaartay maxaad ka taqaanaa ciyaartooyga oo ciyaaraya wax khibrada ciyaartooyga ma lihi waa koox iminka sida macallinkaygu sheegay la aasaasay laakiin mar walba waxaan diyaar u nahay inaanu aad iyo aad aan wixii macallinkaygu soo biray inaan dadka tusnoo muujino wax ciyaartooyga kooxda u ciyaaro oo aad isaga ilaalinaysid ma jirtaa maadaama aad tahay ninka goolhayaha oo aad loo kubadaha inay isaga ku dhammaadaan kubad walba la filayo ay tahay hore isma naqaan laakiin maanta isbaran doonaa waa mahadsan yahay cabdiqani goolhayaha kooxda TC marka insha Allah ciyaarta mar dhow ay bilaabi doonto daqiiqadaha soo socda wixii ka dambeeyana ciyaarta highlight-keeda ayaa daawan doontaan Home Cable TV iyo TV-ga Somali Press TV ee Minnesota laga daawado waa mahadsantiin weli waxaanu joognaa rugta ciyaaraha garoonka dadan ee Sportsville ee ku yaala Columbus Ohio oo koobkii Springka uu weli ka socdo waxaa kaleento kooxaha ka soo qayb galay kamida kooxda loo yaqaano Somali Stars ee ka timaada Wilmer magaalada ku taala ee Minnesota waxaana la joogaa tababaraha kooxda oo loo yaqaano Elias ku soo dhawow aad iyo aad u mahadsantahay waxaan halkan uga faa'iideysanayaa uga mahadcelinayaa dhammaan qabaqaabayaasha tartanka oo Ohio ku qabtay waxaan kaloo halkan ka faa'iideysanayaa tacsi uga dirayaa ehelada iyo qaraabada ay ka geeriyoodeen xiriirka isboortiska Soomaaliyeed ee Olombikada iyo kubadda cagta ee Soomaaliya أنا بعض سبورتس كان أول ما أدعي سيد ما هو بنوجس وجديان حق سبورتس هذا أول ما سنتين وما سنت إلياس سؤال شان كويدينه وهو كولومبوس ستارز كهذا الله يقان وهاي كترسل وحبا فكرة ما كان يستعيار هذا ما هذا كورمولو عيارته وده ما كرس ما حد سمان تكرجيني عيارته دعدونت والله كبده واسكعد يمدو لكن كولومبوس ستارز وعسبيين لكن كبده وحتى إكسبيرنس أنا استعماله أنا قدومي برج برتمان أفريقيا معلن هير قرن إلا سيراء صون نقضي وحرجنا يا إن عذرونا هالكاس كسب نقولشن إن رعد إن شاء الله ما دام سفر دير سوق شيء وحادث له ذا يالك قولب إن تكون نقطة ويلمر مجال من السورة سيف يعني ما شهنا يكوبكم بس كحرين كوبك سنة كم عن له أنا مرتي أنا أسكله أدبان كور جيني إن ويلمر جيسد إن وكان وهكذا تودينا نقطة كابتن كوهذا Somali Stars كابتن ويلمر مستر بكر كسر مستر بكر aad baan ugu faraxsanahay soo dhaweynta ay na soo dhaweeyeen gudida liigan qaban qaabiyay waxaan aad ugu faraxsanahay maadaama magaalada Wilmer deganahay inaan helno coach aad u muhiimsan oo Soomaaliya waqti ka soo qaatay Mareykan hadda noogu yimid si xooglan aan ku helnay maanta intana keenay iyo anigana qaban qaabada weyn lahaa marka waxaan aad ugu helnay ilaah asaga iyo ragga meeshan qaban qaabiyay alxamdulillah maanta ka war ciyaarta maxaad rajaynaysan guul baan rajaynaa insha Allah maadaama waxna wada markaa waad mahadsan tahay guul ayaan u rajaynaynaa aad iyo aad mahadsan yihiin weli waxaan ciyaartooyga iyo ciyaaro badan fara badan ayaa ka dhici doona garoonka maanta marka waanu u tagi doonaa koox walba waraysiya ayaan idinka soo qaadi doonaa Cabdirasaaq Cali Boos Home Cable TV waxaa bilowday koobkii waxaana ciyaartii ugu horeysay isku arkay labada kooxood ee Columbus Eagles iyo kooxda midnimo oo ka timaada gobolka Minnesota waxay ciyaartaas ahayd ciyaar aad iyo aad u xiiso badan dadweyne fara badan ka soo qayb galay maadaama ay koox ka timid gobol kale iyo koox u dhalatay ama ka gobolka lagu qabtay ay isku dhacayeen koobkaas ayaa jawi wanaagsan ku bilowday waxaana ciyaaruhu socdaan si rasmi ah oo waliba xiiso leh ciyaartu aad iyo aad u socotaa waxayna ka socotaa garoonka dadan ee Springfield ee ku yaala Columbus Ohio Mareykanka ciyaarahan oo ay isugu yimaadeen 16 kooxood ayaa waxay ka kala yimaadeen gobolada Mareykanka oo dhan iyo waliba koox ka timid dalka Canada ee dariska la dalka Mareykanka koobkaas ayaa socon doona muddo 4 maalmood oo qura waxaana guushu ay raaci doontaa kolley koox sidee ay noqotaba waa
waxaa gadaasheeda ka muuqda waa kooxda Somali Tigers iyo coachkoodii oo tashanaya ciyaartii daqiiqada yar ayaa ka haray waxa ayna la ciyaari doonaan kooxda Washington DC ka timaada ee loo yaqaan Washington DC FC marka ciyaartaas kooxda Somali Tigers waxay ka timaada Minnesota gobolka Minnesota ee Soomaalidu aad ka ugu badan tahay waana kooxda ugu koobabka badan kooxaha ka ciyaara ee North America oo laga yaqaano dalka Mareykanka gudihiisa iyo waliba Canada oo ka qayb gasho koob walba marka maanta ciyaarta ay soo bandhigaan waan arki doonaa kooxda Washington DC ayaa iyaguna koox wadooda aad u sarreyso oo si fiican isu soo diyaariyay ciyaartoy iyo dad kubadda magac kule ay macallimiin u yihiin lana socdaan marka waa arki doonaa mar dhow waxaan waraysi ka qaadi doonaa tababaraha kooxda Somali Tigers iyo kabtanka kooxda daqiiqadaha soo socda hadeerna waxaanu la taaganahay ciyaartoy kamid ah ciyaartoyga TC Stars ee Minnesota ka yimaada dalka Mareykanka waxaa la yiraahdaa ciyaartoyga dhinaciga bidix taagan Cabdirasaaq Yare waa ciyaartoy aad loogu yaqaan North America oo dhan koobab fara badan qaaday waa ciyaartoy ugu koob badan waa ciyaartoyga koox fara badan la ciyaaray waa ciyaartoy sida Nicholas Anelka ama Ibrahimovic marba koox taga oo koobab la qaada marka Cabdirasaaq maanta ciyaartii ugu horreysay oo ciyaarteen waliba 8-1 ayaad u dhibteen ka waran ciyaarta see dareemaysa maanta horta wallahi game kastaba waqti leeyahay muddo badan aan isku diyaarinayna koobkan inaan imaano wixii ilaahay qorway dhacaan laakiin as a team ayaan wada dheelnay yani waa isla wada shaqeynay basically kooxda kale magaalada ka yimaadeen annaga safara ka nimaan waa daalneen so advantage-keena wuxuu ahaa inaan quickly dheelno inaan dhaqso gool gashano saa hadhowtay aan u nasano marka annagana waxaasan sameynaa intee koob ayaad qaaday ku guulaysatay intaad dalka Mareykanka joogtay maadaama adoo yar aad timid oo aad ku kortay dalka Mareykanka wallahi horta koobka qaaday samarka hadda la soo dhaafay koobkii waxa qaaday 33aad just championships waayaan oo kooxa la qaaday laakiin koobka aan leeysiiyay ama best defender ama MVP yani ma kaan garan karo laakiin soo far 33 koob qaaday koobkan hadda ku daro koobkii 34 noqonaa so ilaa Allahu aalim ilaahay laakiin waxaad koobka la qaaday kooxo aad u fara badan wallahi hadda fiiriyo originally 3 kooxa u dheelay kooxa badan ma anoo yar waxa imaaday 13 sano jir aan joogo community imaaday oo fiican koob badan la qaaday haddana kooxaha North America laga garanayo sida Somali Tigers one of the best teams like North America u imaada la joogay waa la qaaday haddana TC jooga so saddexda club baa soo mareen saddexda clubna very good clubs weeyaan hadda maxaa is leedahay kooxda TC ma ku retire gareyn doontaa mise kooxo kale koobab kale ka doonan doontaa horta TC passionate maxaa la dhahaa waxaan rajeynayaa inaan ku retire gareeyo someday inaan coach ka noqdo ama assistant coach which seems like head coach inaan ka noqon doono oo macna carab aan bedeli doono marka ani hadda asaga laftirkiisa competition kula jira aad iyo aad u mahadsan tahay Cabdirasaaq Yare dhinacay waxa tagan Cabdishukri oo isagana tababara kamid ah kooxda TC ku soo dhaw Home Cable TV waa mahadsan tahay wari maanta ciyaar aad u qurux badan baa soo dhigteen dadka aad weyn kooxii idinka soo horjeedaan message baa u dirteen in koox walba ay aad idinku diyaar garoodo marka maxaad malaynaysan ciyaarta soo socota yaad la ciyaari doontaan waxaan la ciyaaraa ciyaarta noogu horeysa Atlanta koox ka timid macallin giftuna wato muhiimadana waxay tahay day by day oo game by game ayaa noo horeeya marka waxaan focus gareynaa gameka markaas joogno maadaama koox badan ay joogaan finalka inta ka horeysa waxaan fiirnaa gameka markaas aan ciyaarayno muhiimadana waxay tahay ciyaartaas aan dheelino markaas inaan focus gareyno si taas marka ku inaan talaado ugu fikirnaa dana macallin giftin waa macallin aad looga yaqaano isboortiga iyo Soomaalida iyo wax walba waa tababare aad khibradiisu u sarreyso marka hadeerna ciyaartiisii daqiiqad ayay soconaysaa marka waxaan u malaynayaa ciyaartaas aad baad u fiirsan doontaan kooxdiisa wallahi waa runta annaka laftiina waan soo dadaalnay marka waxaan fiirinaa ciyaarta hadda sida u ciyaarayaan iyo habka tikniiga u ciyaarayaan si aan u maajgalana ama uga fahnaano sida u dheelayaan marka waan ku qasbanaa in ciyaartiisa daawano oo u miisaano annaka aan isku barbardhigno kooxdeena ciyaarteena si aan ayso u bedgalan ama uga badano aad iyo aad u mahadsan tahay Cabdishukri iyo Maxamed Carab oo aan ku wareysanayay bacdalna ay 8 gool dhaliyeen ciyaartii ugu horeysay ee koobka Spring Cup ee ka dhaca Ohio sanad walba xilliga guga waa ciyaaraha soo socdana waan idin soo gudbin doonaa wixii ay kala kulmaan natiijooyin waxaan u rajaynaynaa khayr waa Cabdirasaaq Cali Boos Home Cable TV Ohio
ciyaartani waxay dhex maraysaa labada koox Somali Tigers waa koox aad iyo aad looga yaqaano North America oo dhan waqooyiga Mareykanka sida dalka Canada oo ay laba jeer oo isku xigta ay tagtay finaliska iyo waana kooxda ugu koobka badan North America marka la yiraahdo waxayna ka dhisan tahay gobolka Minnesota kooxdaas waxay ku dhacaysaa koox ka timid Washington DC ee dalka Mareykanka koox ciyaartana ay aad iyo aad ciyaar xiiso badan waayo kooxda Tigers dad fara badan ayaa daawada ciyaaraheeda oo aad iyo aad ciyaartoy aad farsamo fiican ayay leeyihiin waana koobkii oo hay ka dhici jiray kooxda Washington DC ayaa iyaduna kooxan dabyarshidayna waxaana la socda ciyaartoy fara badan oo dunida aad looga yaqaan Soomaalida waxa ciyaartoygaas kamid ah Khalif Rico iyo rag fara badan oo wafti oo soo raacay laakiin waa dhalinyaro yar yar maaha iyagii kuwa ciyaaraya ciyaarta ay socota Soomaaliya waa mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo haddana gudoomiyaha xisbiga tayo ee dalka Soomaaliya siyaasaddiisa walanka ku jira mudane Cabdullaahi Farmaajo ayaa cusmaad ka helay guddiga qabanqaabada isboortiga ee ka dhacaya dalka Mareykanka gobolka Ohio mudane Farmaajo mar aanu la kulannay su'aalo ayaanu weydiinay sababta ay ku yimid waxaana loo jeediyay waxaanu haddana la taaganahay mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo ahaa ra'iisul wasaarihii hore ee dowladda ku meel gaarka Soomaaliya haatana boqosho ku yimid gobolka Ohio ee dalka Mareykanka mudane maalin dhaweed waxaanu kugula kulannay Minnesota waxa waraysi ka qaaday wariye Cali Xaraare xagga siyaasadda waxaanu maantana aanu ka waraysan doontana waxa tahay nin isboortiga aad ugu xeel dheer marka nooga waran maxaad halkan boqoshadooda بسم الله الرحمن الرحيم بقشده waxay ahayd waxa lagu casuumay ciyaar sanadeed halka lagu qabto badda cagta oo ay isugu yimaadaan dhowr iyo 10 state oo dhalinyaro ah aad iyo aad aan ugu faraxsanahay inaan ka soo qayb galo iyo guddigii ugu casuumayba waxaan rajeynayaa in maato ciyaarta maalmaha soo socda si nadiif ah oo san qofna oo waxba injury ama dhaawac u gaarin ciyaarta waxa la oran karaa ciyaar saaxiibtinimo kulliba qofba kulliba team ya guulaysan doona laakiin waxaan rajeynayaa inay wada guulaystaan haddii mar wada yimaadeen kulligood halka yimaadeen marka kulliba muhiimadu waxa weeye dhalinyarada in maaragtay isku bartaan ayna maxaan ku rahaa ku ciyaar bartaan oo ilaa xitaa markii ugu dambeysay ay noqon karaan xulka qaranka dalkan waa mahadsantahay mudane Farmaajo su'aasha kale ku weydiinaya wax guddiga qabanqaabinaysa ciyaaraha waxay noo sheegeen in ciyaarta dhici doonto berri toole oo ay wada ciyaari doonaan ciyaartooygii hore ee Soomaaliya ka ciyaari jiray la yaqaanay Toronto hadda degan iyo kuwa Virginia degan inaad ciyaartaad ka noqon doonto referee ama garsoore marka adigu waxa tahay garsoore laysan haysta sida noo sheegay maxaa ka jira arrintan waa sax aniga waxaan ahay wax loo arbiter ama garsoore gobolka New York oo macnaha ka qabta ciyaaraha collegeska high schoolska iyo ciyaar kasta oo private ah bacdama aan hore u ciyaari jiray rag iyo ciyaar jiray halkan jooga qaarkood ka muslimiin kamid ah xoga ku jeediye kaamirada ka muslimiin soo ninka dadkii jabin jiray kamid aha ya marka يا رك بدن أو ماشان جوجا محمود حنا كبحنا نشيء دوسي وصار كان تكي هرو واي عم بقول عيار جري عيار قرق قبل السماء وكاسا مركا صح واي بردو له يراهدو إن وحنجعل هاي قفكو هبي لهان كرو
xil kasta soo hayo laakiin uu jeclaan karo ciyaaraha maaragtay noocyada kala duwan marka aniga ciyaarta soccerka waxay tahay favorite waxaan ka ahay garsoore waxaan rajaynaynaa berritoole inaanu aragno adoo dabagaabkaaga wata iyo firimbigii oo haddii red car ama yellow loo baahdo bixin doono waa sax waaye red iyo yellow labada waa la siiyaa إن شاء الله dabagaab ma aqaan soo qaadan doono laakiin kaasna waxa mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo aan ku wareysanay garoonka Springfield ee ku yaala Ohio Columbus oo ka soo qayb galay ciyaaraha uu berritoole noqon doono referee qaban doono ciyaar kamid ah ciyaaraha dhici doona siyaasadda ayaa lagu bartay mar kale bal sportiga berrita ayaan arki doona waana mahadsantahay waxaanu maanta ka qayb galnay ciyaarta uu qabanayo Maxamed Cabdullaahi Farmaajo uu ka yahay garsoore ciyaartaasoo dhex martay All Stars gobolka Washington DC iyo ciyaartoygii cuslaaday ee Toronto Ontario ee dalka Canada waxaana ra'iisul wasaarihii ayaa hay'adda haysta isaga ayaa kala hagaya ciyaarta waa garsoore ama garyaqaan ama fiirwale ama hadda kala wasaaraha ayaa leysay ka qaaday gobolka iyo dalka Mareykanka ku nool yahay wuxuuna leysankaasi qoraya inuu qaban karo ciyaaraha رئيس وزراء أيا أقوال الإسبوعية أهم جميع الصومالية فرماجو أيا أردية سياسة مباركة واقع سبيل الإسبوعية فكرة من ciyaartii finalka waxay dhex maraysaa labada kooxood kooxda TC Stars oo ka socota gobolka Minnesota iyo kooxda Tennessee ka timaada magaalada Nashville ee gobolka Tennessee ciyaartuna waxay ku dhamaatay 4-2 waxa guushii ku raacday guushu nin kaliya ayay raacdaa kooxda TC Stars ee gobolka Minnesota waa dabaaldegayaan ciyaartooyga ayaa marba ninkaas waa Shaafiyare waa ciyaartooy ku dhaawacmay ciyaartii dhex martay kooxda Somali Tigers iyo kooxda TC birihiisi ayuu wataa ciyaartooygii ayaa marba dhinac boodaya waa dabaaldega ayaa socda waa congratulations ayaanu leenahay hambalyo ayaanu leenahay ciyaartooyga feeraha qaawan waa Master Amayo oo loo yaqaano Cabdiwali Amayo gool qurux badan ka dhaliyay gool ciyaartooygii ayaa isoo hambalyeynaya taageerayaashana hortaagan halkaas ka Arsenal wata waa Cabdiwali waa Liibaan Qodax وعيارتي كوج محمد عرب أي عيارتويسي مربى دينا تاجن وحليه congratulations همبليو آدي يانو فرحسنا هاي ريد مينيسوتا يو تاجرياشا سفر كدير سوق علي قبل كوهايو يمد هالكن كوبك أي الله ديارنا يا جدّي عيارها أي جوجا أو كوبك صوبن ديجي دونا وحنا مانتا كغيب قادن دونا ciyaaraha abaalmarinta marka la bixin doono ciyaartooy fara badan oo Soomaaliya aad loogu yaqaano waxa kale oo kamid noqon doona dadka bixin doona dadkii sponsoray koobkan oo ay kamid yihiin Master Russell iyo Maxamed Dr. Maxamed wiil Soomaaliyeed oo dhakhtar oo reer Ohio ah waa koodkii ay la turturaya koodkii ay ciyaartooy TC Stars kor u qaadeen TC oo
gaad sida kor ayaa loo wadaa coachka ayay kor tuurayaan waxay leeyihiin weli wada baaldegayaan kaasina waa tababare oo coachkii ay waxay ku daadinayaan cabitaan iyo sharaabyo kala nooc hadday biyo cadadaan lahayd hadday orange ahaan lahayd hadday shaah ahaan lahayd hadday ahaan lahayd wax walba oo nin walba gacanta ku hayay waa lagu daajay hadda orange ayaa lagu shubayaan malaynaya iyo ma aqaninaya energy water coachkii waa ka wada mamanti coachkii ayaa lagu daadiyay wuxuu leeyahay coachkii maanta waxay cabdiqali xaaji October ayay isqabsadeen goolhayaha u babac dhigay kubad kasta oo lagu soo laado ilaa finaliskana kooxdiisa soo xambaaray coachkii ayaa saaxiibadiisii xitaa waxay dharka inay ka qoyaan taageerayaasha iyo saaxiibadu ka baqi maayaan ninkaas waa Rashid waa kabtankii hore kooxda coachkii ayaa maca qoyaankiisii dadkii ay hagaraynayaan oo la isbaalkeynayaan ciyaartooyga ordaya waxay leeyihiin taageerayaashooda ordayaan u hambalyeynayaan waxay leeyihiin waa TC Stars hambalyo Minnesota hambalyo TC Stars ayaa hadda ka hor sanadkii kasii horeeyay ayay ku soo guuleysteen koobkan waa muddo 3 sano markii labaad ay koobka guuleystaan taageerayaasha TC Stars ayaa taagan meel walba weli koobkii ayaa la bixinayaa koobkii ayay qaadeen ninka koobka loo dhiibay waa Maxamed Rashid ciyaartooy aad looga yaqaano Soomaaliya iyo Mareykanka وانا عيارتوي ما كان كل واقع اللي أسيري لها كوتش محمد عرب وكوتش كوحدة TC Stars from Minnesota وكوجول استي مانتا كوب كي لغو قبطي أوهايو سنة كا لبضة كونية لبيو توانكا كوب كي سبرين كا لغبطو مركا مستر محمد عرب وحن كويدي كورن مانتا شعورت هذا سيدري بيسا هدايا نوان كوريست هذا يوم فرح سنة هاي عيارتوي unbelievable enough ما كان في سوماليا من إنجليز كبا أنا كنت describe كذا situation كمان أنت ماشي مارد emotion كي ماشي مارد مر لبعض واحد كقول يستي كوتش كوقف عن كوتش كان تونن تيجا أما تبرير جوا نكسنا مركب بالله داس ما هي كوتا هاي إن أدريم سين لغوا أقول صدا إن أبغى المرينتاس dadka ii vote gareeyay ama maarad dadka ii codeeyay aad u mahadsan yihiin dhammaan blood means a lot maarad best coach ii doorto coacheskii dhammaan meesha wada joogo maarad kuwa qaran iyo kuwa meel maarad ka soo coach gareeyay sharaf weyn ii tahay maarad waxay motivate gareyn doono ayay tahay insha Allah haddii Ilaahay yiraahdo taganahay nin ka mid ah gudidii aadka u firfircooneyd ee koobkan sharafta badan ee lagu qabtay Ohio oo maanta la soo gabagabeeyay ka mid ah oo aan har iyo habeen seexan intii koobkana socday soo dhaweynta martida iyo haddii ciyaarta hanaanka ay u soconayso iyo maamulka hayay master mahad maxaa dareemaysaa maanta ciyaartii maadaama aad soo gabagabayseen wallahi ku faraxsanahay mar walba marka wax abaabulaysid waxaan rajaynaysaa inay nabad ku dhamaato meeshana ay nabad ku dhamaato nabad bay ku dhamaatay guul ay ku dhamaatay dhalinyaradii labada tiim ayagoo habiye gacanta iska qaadeen sida sportiga ahaa marka taas markaad maamul ama wax samaynaysid taas iyo guushaada marka aad ugu faraxsanahay sida u dhacday su-aashii kale ku weydiinaya waxaa weeye koobkan 12 koob oo hore ayaa Ohio la soo qabtay koobkan sidaanu arkaynay wuxuu ahaa koobkii ugu fiicnaa oo inkastoo koob fiican oo kale la qaban jiray marka sanadkan dadaal fara badan miyaad geliseen waxa isugu yimid ciyaartooygii hore dad badan oo gobollo badan ka yimid Canada laga yimid meel baa ka yimid marka koobkan maxaad sidaas waqtiga intee lag dadaal intee lag yaad geliseen dadaal badan galinay waxaan plan gareynaynay muddo 9 bilood ah waxaan nagala qayb qaatay dad badan oo ilaa gaarayo 7 qof oo member aan ka dhignay sanadkan board noo ahaa oo ka mid ah sponsorskeena Dr. Maxamed Dr. Ahmed Wali Russell iyo media-heena iyo ganacsatada dhalinyarada waaweyn sportiga Columbus dhalinyaro waaweyn waxaa jirto tiro badan oo Brunei dheeri jirta kooxaha hadda ka retire gareey inteena 20 iyo koran u dhaafnay qof walba task iyo shaqo lahaa maadaama damacna sanadkan inaan ballaarino waxaan ku soo darnay 4 tiim oo yaryar da'dooda 8 ilaa 2 iyo waxa dhinaca kale ka soo ayagna 4 tiimka 40 iyo kor wixii ka koreeyay dheelaayeen iyo 16 marka waxay nagu noqotay 24 xafladna waa ku darnay sanadkan weyn oo lagu soo gabagabeeyay xalay oo aan recognition ku sameeyeen marka waxaan sameeynay gudiyo qolo walba mas'uul waxay ka ahayd task anna waxaan qaabilsanaa coordination sidaas aan ku dhameynay marka
aad iyo aad mahadsantahay mahad xawaale shaqada aad qabateen congratulations hawshiina waan idin hambalyeynayna waa mahadsan tahay adigoo nagala soo qayb san yahay cabdirasaaq cali boos oo inoo soo gudbinayay cayaarahaasi ka socday gobolka ohio ee dalka maraykanka kuwaas oo sanadkiiba mar la qabto sidii aan horeba u sheegay guug kasta waxa ay ciyaarahaasi socdeen ilaa iyo 12 sannadood daawadayaal waxaanu idin ballan qaadaynaa wararkaasi ku saabsan amaba dhacdooyinka dhinaca cayaaraha ee gobolada dalka maraykanka iyo weliba tartanada ay ka qayb galaan dadka soomaalida ah ee iyagu degan waqooyiga america inaanu si toosa idinku soo gudbino hon cable gobolka waqooyiga maraykanka tan iyo kulankeena dambe waa cali cabdi xalaale oo dhammaantiin ba idinkaga tegaya sidaa iyo nabad geliyo